Iigsiga himilada dalkeena Iigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta kirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay daawadayaal ku soo dhawaada Wacawka Legacy oo maanta kilibka aydi hayo iyo daawashada aydi hayo waxa kamida bustaan ki Maxamed Ciise Obsiye ayaan ku suganahay inta dalag uu ka beeray iyo bustaankan geedaha ka beeran ayaa idin soo tabin doona daawasho wacan Maxamed ku soo dhawow Wacawka Legacy ما سنت ولوه محمد أحمد حسن عوكل ولوه waayahay maxamed waxaan ku weydiin rabay bustaankan aad halkan ka beertay iyo beertani ma beertii aaba ها beertani waa beertii aaba Allah naxariistay beertiisa weey Allah naxariistay waan gartay waayahay beerta bustaanka aad ka dhigtay beertani markii hore waxay dhul banaan ها dhul banaan oo geedka jiraan bay oo gufiya ka saaray waan si aan uga beero waan u diyaariyay marka inaan wax ka beero waan gartay waayahay maxamed bustaan baad hadda ka dhigtay geed weyn iyo geed gaab waad ka beertaan u malaynaya waan ka beeray bustaan ka dhigay geed weyn iyo geed gaab waan ka dhigay aye geed weynta waxa ku beeray liintii oo ah liin macaantii aye babay baa ka beeray aye marka labada nooc baniyada geed weynta ka beeray waan gartay geed gaab suna waxa weeyaan way badan tahay waxa weeyaan basasha u badan aye toon baa kamida aye waxa kamida baamiye aye waxa kamida barbarooni aye waxa kamida qaji aye waxa kamida xulbad aye waxa kamida xabaasuud aye marka intaasaan tiradii lagtaan jeclahay waan gartay daawada sidoo Maxamed noo sheegay geed weyntu waa liimacaantii babaygii geedyarta ayaa aad u fara badan oo basashi iyo toontii iyo khamoontii iyo xulbadii iyo soomaha waan gartay iyo xabaasuudii waayahay Maxamed oo bustaankan dalagan intan leeg marka aad beertay isha macalina oo wala wada arki doona tabacaad gelisay iyo markii aad bilaabaysay hawsha sidee kugu ahayd bataf wax naga yarsi والله صرتها كل هورد هورد بيري هور ولا هور والله قلنا marka kolba imika sanadkii afraad baan imika wadaa sanadkii afraad ayaa wadaa marka markii u horeysay halkan aynu dul taaganahay oo biyaha aan ku sameeyay qalbidka waan gartay ayaan biyo si ay meel shu biyo yeelato horta ka sameeyo waa kan ka dambeeya oo waa qarbad ma aha balayba waa qarbad baa ka dhigaa oo waxa weeyaan 10 mitir iyo 10 mitir aduu kun foosto qiyaastii qaadaya kun foosto markaasaan yaan beeristaag baba kama waraabisidee roobka ka soo go'een waa biyo balayga oo waa kan imka iga dambeeyo waa bac waaw daawadaya sidoo Maxamed inoo sheegayo waxa uu ka beeray biyahan iga dambeeya ceelna maaha oo waa balayna maaha waa barkad yaro bac oo qarbad baa leeyda taasoo ka waraabiya roobka ka soo imka waxaan ku jirnaa jilaalkii afkiisii baan imka galnay oo gugii waa kan dhamaaday ka waran inteebe ka qaadatay ku foostana waad iga nigu sheegay Maxamed waxay ka qaadanaysaa imika laga bilaabo xilliga marka jilaalku soo galo inta jeereed waraabiso waxaan ku ilaalinayaa un geedaha waaweyn ee geed weynta haye baan noloshooda ku ilaalinayaa oo si ay noloshooda xilligii u gaadho guga laakiin geed gaabka iyo waxyaabaha kale iyaga kuma beerayo geed gaabka halkaas ku joogsanaya waan gartay biyahan laftigeeda imika biyaha ku jira biyahan marka ma waxa ku keena maceel baad ka soo dartaa biyahan halkay kaaga yimaadaan biyahan waxaan uga sii diyaar garoobaa marka guga xilliga guga u dambaysa ee gugu sii dhamaanayo ayaa halkan toga dhisaamahan toga yaale dhisaamahan biyaha ku jira iyo biyahan isaga soo galay marka xilliga roobka moos ku soo galiyo waan gartay ayuun baan ku daayaa biyaha siinaanay isaga xaqiisa ka dhaqaaqin oo keed ku ah keed isa u noqoto waan gartay wixii kale maadaama roobkii daayo oo dhisaamihii la helayo waxa ka sii waraabiya
waan gartay waayahay hagaag daawadayaal sidoo inoo sheegay waa biyaha roobka uu keediyey iyo biyaha dhijaamada oo togada hareeraheega oo uu ka soo qaato oo jiinki kaga soo qaato maxamed imisa ka soo go'a imiko kale basasha imisa soo goysa dalagii basasha sanad bay ku xigtay aduu sanadkii ka afreeyay ayay ka yareeyay imika sanadkan aad baan u beernay ilaa iyo 100 kiish imika inay ka soo go'aan baan rajaynaynaa waayahay teeda kalena toonto kale waxaad iga warantaa toontana imisa ka soo go'a toonta imika waa bilaabay oo cusub tahay waa bilaawiyadu marka iyada imika xilligeedii weli ma gaarin manay goyn laakiin imika ay beeran tahay waan gartay waayahay geedweynta imika oo kale liimacaanta iyo cambaha iyaga laftigoogu waa soo socdaan weli midho kamay soo bixin miya imika babayga geedihii horreeyey midhii way dhaleen kamay soo goyn imikay bilaabeen liintana geedihii u horreeyey 3 geed u horreeyey imika ayay u bixiyeen marka way dhali doonaan iyaguna waayahay seedka imika bustaanka geedaha adii tilmaamtay basasha toonta xulbada khamuunti iyo kamsaradina waad beertaan u malaynaa iyo liimcaan iyo babay waad ii sheegtay seedka halkeed ka keentay seedka waxa weeyaan waan soo iibsadaa oo waxaad ka soo iibsataa dukaamada seedka iibiya waan gartay waayahay maxamedow si wanaagsan ayaad noogu tilmaamtay qarbadkan aad ka beertay waa ikow daawadayaal beerta waxay u baahan tahay oo maxamed markuu ku kaafoosto maanta de inta ku beeray haddii la maalgelin lahaa maxamed waa ka badin lahaa kolley caawimaad ceel iyo in loo qodo oo intii dee dadaalkiisii waa muujiyey oo waa ka bacdaa qarbadka marka ha la soo caawiyo oo ceelkii ha loo qodo oo ceelkii sidii loogu qodi lahaa walaaladeeda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaa waxaan idin leeyahay in la soo maalgeliyo maxamed oo beerta sidii tabca maxamed dadaalkiisii iyo tabiciisii ku kaafoosta waa ka bustaan ka dhigay beertoodii maxamed waxa uu u baahan yahay maanta haddii uu ceel heli lahaa maxamed inuu intan iyo inka badan u beero biyaha ceelka in loo soo qodo oo ummadda Soomaaliyeed ee na daawanaysa meel kasta oo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan waxaan idin farayaa in aad beerta sidii ceel loogu qodi lahaa falowgeed loo qabto maxamedna la soo maalgeliyo intii karaankiina isna uu dadaalkiisa sii badiyo haddii dowlad noqoto iyo haddii noqoto mujtamaca Soomaaliyeed waxay idiga baahanay sidii ceelna lagu qodi lahaa wasaaradaha ceelasha qoda waxaan uga baahnay iyaga laftigooga inay ceel iyo wax noo qodaan sidii naloo maalgelin lahaa oo maxamed maanta bustaanka maxamed ciise obsiye loogu maalgelin lahaa ayaan idin waa bustaan qarbad laga beeray daawadayaal maxamed tabacaas ayuu geliyey laakiin hawl walba hawsheeda ay leedahay maxamed oo bulshada maxaad fari lahayd oo aad u gudbin lahayd oo sidaa u qabto bulshada farintaad u gudbin lahayd adigoo soo koobaya sax waa fiican weeyaan waa la ugu muhiimsan ee loo baahan yahay su'aashaasi waad ku maasan tahay bulshada waxaan fari lahaa dadku hadii jeer markay halkan imika igu yimaadaan su'aal bay weydiiyaan waan gartay inta u badan waxay igu yiraahdaan geedahan liinta aad beertay imisa sanay ku baxayaan ayay igu oran jireen tana inta sanay ku baxayaan ilaahay baa hayay laakiin waa lagu tabcayaa waa la beerayaa horta beeraan oran jiray waan gartay macnaha markaan idhaahdaa 4 sano ay qaadanayaan way waqtigii bay raagsanayaan markaa samirkii dadkan ma garanaysaa waan gartay marka imika markay geediyo waaweynaaday arkaan oo u bixiyay ayay igu yiraahdaan wallahi waa beertii baxday marka dadka waxaan fari lahaa imika inta halkaa joogay wax kulba wax qabanayay intii ay u muuqatay arkiisay inta kale imika arki doontaba inay fadhiga ka kacaan oo ay maalintii ninku hadduu doono 10 mitir ba ha beero ha qodo waxbay noqonaysaa anigu mar ma wada beerana mar baan ku daray waan gartay imikana waan sii wadayaa waan ku sii darayaa dilayda waan gartay marka wixii tabacii meesha ma garanaysaa aad geliso wuu muuqanayaa bari ka maalin wixii wax lagaga maarmayay baahida lagaga maarmayayna waa waxa dhulkeena yaala dhulkeena uma baahna carrooyin iyo wax ma garanaysaa filtration leeyahay oo lagu nafaqeeyo uma baahna waa dhul dihin imika biyihii guga markaan aad arkaysa gugii aysaa ku tahay mustaqbalka haddii ilaahay idhaa kulley ama biyaxidha ama ceel waa la samayn doonaa marka la sameeyana waad garan kartaa siday wax noqonayaan markaa dadku inay wax qabsadaan oo ay gacanta maalaan ayaan kula talin lahaa waa si wanaagsan daawadayaal waad arkaysaa maxamed taladiisii
waa in lagu dabadaydaa oo deesba mitir buu ka bilaabay imikana waxay maraysaa de markaan qiyaaso ishayda waxa weeyaa waa intaasoo hektar oo de mitirkiina ay noqonayso hektarkiiba intaasoo mitir uu yahay waa in lagu dabadaydaa dalaga iyo bustaanka wax soo saarka hiigsiga iyo himilada dalkeena waa in caradeyna wax laga soo saaraa hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaanka tubtiisa haysta kirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay dilaaca cirka ku horay dilaaca cirka ku horay waa lagu dabadayan doonaa insha allahu tacaala markay wax soo baxaan qaybteena labaad waynu eegi doonaa iyo wixii ka soo baxay midhaha daawada waan idiin soo gudbin doonaa waa maxamed ciise obsiye iyo bustaankiisii iyo taabaca iyo qarbadkade waad u jeedaan waxaan idin leeyahay anigoo maxamed cawka daawadayaal intaynu dib u kulmi doono subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta ha ka iloobina Cawka Legacy assalaamu calaykum